السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaada dhammaantiin meel walba ay joogtiin iyo xilli walba iyo waqti walba ay ku tahay waa kusoo dhawow barteena MK Series 1. haddaba haddii aad tahay dadkii hore noola joogay waxaan ku leenahay mar kale soo dhawow. haddii aad tahay markii ugu horeysa aan soo boqotana fadlan soo dhawow. halkan waxaan nooga hadalnaa waxyaabaha online business la xiriira gaar ahaan haddii aan leed forex trading sidoo kale week walba waxaan halkan soo gelinaa falanqaynta isbuuclaha ah tradeda aan markaas u aragnay inay fursado leeyihiin iyo maaragtay falanqaynta guudba oo suuqa. soo dhawaada dhammaantiin. بتعلمني وبتنسى يا بابا اللي قلته، وانت القدوة يا بابا وانت المثل الأعلى. ما تزعل مني يا بابا يا عيوني وأغلى. waa mar kale iyo muuqaalkeeni falanqaynta ahaa isla bishii shanaad 2024 saa ogsoontihiinba waxay ahayd maalin walba oo maaragta axada waxaan halkan soo gelinaa falanqaynta isbuuca suuqa forex market. insha allah maantana waxaan ka hadli doonaa falanqaynta oo dhammaystiran oo buuxda iyo dhowrka trade aan aragnay inay fursad leeyihiin. marka adiguna waxaan rajeynaa inaad maaragtay taxliilintaada iyo setup-kaada aad ku dabaqi doontid si aad uga heshid maxaa la yiraahdaa dhiiranaan iyo inaad maaragtay tradeda aad ilaasatid mise aad kusii dhiiratid inaad fursad badan aad ka heshid. haddaba saa hore u ogsoontihiin baa falanqayntan isbuuca waxaan ka bilownaa DXY maadaama ay tahay lacag badan oo lacag aan dhowr trade oo kala duwan aan maaragtay fursado uga raadino oo maaragtay doolarka dhan maaragtay laga qiyaas qaato. DXY sida ogsoontihiinba weli waxba iskama bedelin fikirkeeni hore down trend ahaa ayaan weli kasii maaragtay aaminsanahay kaliya saa u jeedin baa halkan down trend oo move oo down trend ah ayaa ku darsamay lower low aan u hooseeyay maaragtay lower lowgiisa korkiisa oo ahaa lower high and then waxaan halkan kusii darsoomay lower low kale oo kan kasii hoos maray. soo marba haddii lower low ay lasii jibiyey aad suuqa ku dhigi kartaa jihadeeda waa la bedelay ma jirto. halkan waxaa ka haysanay 4 hour oo ahayd zone halkan korkii ugu koreeyay 4 hour kan halkan laakiin 1 hour trading ayaa ku jiray oo ahaa maaragtay 1 hour lower low lower high lower low lower high lower low iyo lower high and then lower low markii imaaday waxay aad maaragtay aad ii sheeg aad suuqa fursad ka dhex raadisaa waa inta u dhaxaysa halkan hoostan iyo korkeedan oo meeshii markaas lagu noqdo ay ku base gareysan tahay. so and then waxaan arki doonaa move-kan ku soo dhacay last week fursado badan ayaynu ka helnay oo kala tacaamulnay. so asagana insha allah mar kale ayaan rajeynaynaa inaan sidiisa lamid aan maaragtay kala tacaamuli doono. haddaba sidaa ujeedid halkan waxaa uga jeedaa inay zone tahay zoneka marka aad maaragtay ii sheeg aad xaqiijinaysid saan ku sheegay waxaan ku yiri waa in zoneka toos dhowrkan dal uga soo daataan and then opposite zoneka kaasoo horjeedana oo maaragtay dhinacan ka xiga midig waa in la soo jibiyey. so intii waa ujeedaa waxaa ujeedaa kanna in la jibiyey oo dhinacan naga xigay oo hoostan ahaa in lagana soo daatayna waa ujeedaa and then meeshaas waxaa dhigi kartaa waa meel supply ah. suuqun wuxuu taarget garayaa mar walba imbalance iyo space buuxa. so kandalkan meeshaan laga soo daatay haddaa fiirisid kandalkiisa koowaad kan labaad ma soo buuxinin korkan oo halkan ah ma soo buuxinin 30 daqiiqo haddaa tagtid fiican baa arkaysa waxaan kala hadlaa oo ah kaas oo kaas si fiican ma loo soo buuxinin. so waxaad dhigi kartaa meeshan waa meel suuqu uu qasab ku tahay inuu ku noqdo uu ku laabto si uu usoo dhammaystiro waxaa la yiraahdo waxaa dhiman ii sheeg imbalance u dhiman kadib si uu suuqu u helo maxaa la yiraahdaa dhaqaaq oo toos oo jihadiisa hoosta ugu sii socdo oo 1 hour and then 30 daqiiqo haddaa tagtid ilaa 15 minuteska 15 minuteska gaar ahaan wax weyn baad usii jeedaa handale oo ah inay halkan maaragtay suuqu weli trend kale kasii bilaabo 15 ah. so 1 hour move ku dambeeyay halkan ayuu ahaa. so move-kan wuxuu sameystay lower low lower high lower low lower high and then lower low lower high lower low lower high lower low lower high and then lower low. intaas markuu handala sameystay halkan waxaa uga sii jeedaa in suuqa halkan uu sameystay waxa la yiraahdo lower lowgay u dambeeyay oo ahaa halkan in la jibiyey oo maaragtay 15 minute high oo halkan ka sameysmay and then uu soo noqday and then uu halkan sii aaday
kan haddaa u fiiriso waa iska agdhow yihiin, waxa weli candle badan ma ahan. So hal move oo kale kana isku noqon karaa. So andan halkaana waxaa ujeedaa suuq meel maaragtay laga buush garaynayo inay tahay, oo ilaa iyo maxaa la yidhahdaa korkaas ay tahay meel suuqa la geyn karo, ilaa all the way upkan kore ay tahay meel suuqa la geyn karo. And then 15 minutekaas iyo 30 daqiiqa trendigan ah oo halkan ku jiro. So waa inaad la macaamisho asagana sidee aad inter u heshid. And then intaan waa sii faa'iideysanaysaa. And then all the way marka halkan la soo aado dhoonkana waa soo raacaysaa. And then waxaan qiyaasi doonaa, rajayn doonaa in DXY ay halkan inta tagto ay maaragtay ay laba mid noqoto. And then halkan markay tagto laba mid bay noqonin, ama trendigan ayaa 30 daqiiqa ayaa inta meesha saan loo soo noqdo ayaa mid kale sidaas uu sameysmi doona. And then 1 hour kan ayaa meesha laga saari doona, oo waxaa noqon doontaa wax la yiraahdo 1 hour markii la dhameeyo 4 hour sidaas inuu ku bilowdo. So waan sida ugu badan aan rajeynayno inuu suuqu noqdo, maadaama doolarku awood badan uu leeyahay fundamental ahaan, oo aan u dhigi karin sabab uu maaragtay hoos u aado ayaa jirta. So asaga sidaas ayaan doolarka ka rajeyn doonaa. Haddii halkan ay inta shuruudiyeena kale noo waafaqdo ay trade naga siisan, all the way doonkan u soo raacayna, wax ma naga gelin waxa la yiraahdo kii, maadaama markaan aan technical ku wada falanqeynayno. So waa la macaamuleyna asagana sidoo sameey. So marka lacaga uga faa'iideysan kartid waxaa ka mid ah Euro USD ayadana si la mid ah Euro USD waxaanu ka sugaynaa aksiga maaragtay DXY maadaama ay taaso ahayd up trend, laakiin 1 hour keedana uu ahaa down trend, 15 minutes keedana uu ahaa maaragtay 30 daqiiqa up trend. So ayadana sidiisa la mid ah waxa ugu duwana. So halkan waxaanu ka sugi doonaa waa trendiga guud oo maaragtay isheeg oo ah down trendka oo halkan kala. So ayadana waxaan sugnaa 1 hour keeda markaad fiirisid inuu ku socdo waxa la yiraahdo isheeg up trend, oo korkii uu kareekan yahay, hoostiisa halkan yahay, kor kalena oo isla aagan isla wada yahay, hoosna halkan ay tahay. And then intaas markaa heshid waxaa kale ujeedaa all the way in maaragtay waxaa ujeedaa in down trendkan kale oo hoostan u soo socdo, hoostan lower low, lower high, and then lower low, iska lower low. And then intaa markaan helnay ayadana waxaan ka sugi doonaa waxaa waaye 30 daqiiqa tagi doonaa ilaa 15 keeda kii uu ku cadyahay trendiga kale, ilaa 15 kan tagno. waa kan 15 keedana waxaa ujeedaa in uu yahay down trend, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. And then halkan waxaa ujeedaa ayadana isheeg sidii DXY aan rabnay in halkan loo yimaado aan rabnay DXY in halkan la yimaado isheeg meeshaan yariista in inta la yimaado suuqu down yimaado kadib uu up aado. Ayadana bilcagsigaas oo kale ayay leedahay oo ah halkan supply-gina waa ogtaa shuruudiisa. waxaan ku leeyahay kan dhala badan oo isku xiga oo buy ay kacaan opposition kaas horjeedan la jabiyo. So and then meeshaan liquidity ayaa ka abuurmi kara ilaa intuu suuq habeen dambe markuu furmo kale liquidity ayaa ka abuurmi kara oo maaragtay bottom ah. And then liquidity-gan markii meesha la soo asturo oo meeshaan saas loogu noqnoqdo hoostaan la imaado liquidity-ga la qaado ayaan hayadana all the way maaragtay korkaas aan Euro USD ka raadinayna, maadaama isheeg asagana tanna ilaa halkan oo imaan doonto liquidity-gina meelahan already hadda meelahan wax liquidity waa ku jira hadaad 5 minutes la sii tagtid. And then doonkan horta imaado, and then kadibna kor halnoo sii aado. Euro USD ayadana falanqaynteeda sidaas ayaan ka sugi doonaa. Sababta aan time frame-ka 15 minutes oo trade-dan dhow oo isdul saaran aan kugu sheegayo wax kale maahan, yacni
kan markaas 30 ka heshid 40 ka heshid inta kale trade-kaada waa sii deynsanaysaa. Yacni 2 trade fur, midna target TB ka dheh, mid kalena open ka dhig, and then sidaas ayaa samayn kartaa. Haddii kale hal mar uu maaragtay uu imaan karaa, uu kaana wada noqon karaa wixii uu ku siiyey. So trade-keena kale noogu xiga lacagteena kale maxaa waaye GBP USD. GBP USD iyaduna waxaa waaye waxay ku jiha tahay Euro USD saan kuu sheegay. wax badan ayadana kusii daayimayno. Ayadana halkan waaye meeshaan ka sugayno oo kandalkan dhimaanka ah, and then meelahan liquidity inaan ka helna ayaan rajeynaynaa. Ayada waxay weliba uga sii duwan tahay, waa halkan waa la jebiyey all the way, korkan kore waa la jebiyey haddaa u fiirisid maaragtay suuqa, and then halkan suuqa toos markuu ugu soo noqdo all the way maaragtay one move oo up ah ayaan ka sugi doonaa, ka rajeyn doonaa hadduu eebaa awoodda la idmo. Ayada weli waxay uga sii duwan tahay USD meesha ay 15keeda uu maaragtay official u ahayn oo kan kaliya la jebiyey, mid labaad oo u dhiman yahay, isaga mid buuxa ayuu jebiyey oo isku dhammaystiran. Waa kan gidaar weyn oo isku dhammaystiran oo kan kaliya ma dhigi kartid, halkan kaliya waxaad dhigi kartaa kan xitaa wuu jebiyey. So GBP USD ayadana sidaas ayaan ka fili doonaa. So trade-keena saddexaad waxaa waaye JPY. JPY fursado fiican ayay leedahay last week, laakiin wixii dhacay waa dhaceen, haddana mar kale ayay u baahan tahay maaragtay falanqeyn kale. So iyadana haddaad 1 hour-keeda tagtid, maadaama anaga 1 hour-kan wax ku dhisayno oo aysan ahayn maaragtay wax trade zaa'id loo sugaayo oo ah trade aan wiigaas u baahannahay bes. Halkan waxaa ujeedaa 1 hour high-kii ugu koreeyey, kii ugu koreeyey kan waaye actually, kii ugu koreeyey waa kan, hoostiisiina waa tan, hoostiina waa tan oo 1 hour-kan hoostiisa. So korkan hoostiisa, and then kor kale wixii kale adaa sii falanqeysan karo ilaa hoostaas waa la sii raaci kartaa, intaan sababta ku samaysmay waxaas. So meesha horta targetka ah oo suuqa guud target gareynayo waa aagan maaragtay oo 1 hour-kaas supply ku jira ah, 1 hour supply-gan ku jira meesha, and then kanna waa midka halkan meeshaan ka baxay. So waxaa sugi doonaa ilaa iyo maaragtay inta maaragtay trendiga halkan uu ka samaysmayo isheeg maaragtay supply-gan lasoo buuxin doono, or maybe this dhimaankan supply afwan. So ilaa dhimaankan, and then waxaan sugaynaa halkan markii la yimaado sida lagu imaado iyo sidii maaragtay uu la macaamili doono, waxay qayb ka noqonaysaa ruleska dhow sidii aan ku heli doono. So ayadana sidii ay maaragtay isku dhammaystirta ayaan sugi doonaa. So ilaa all the way abkaas ayaan sugi doonaa maaragtay ilaa iyo Isniin iyo Talaado inaan helno, weliba Isniinta galabkii New York session xilliyadaas camal, maadaama ay lacag aad isku dhaqdhaqaaqaysa tahay JJ, waa qasab in entry zaa'id ay bixiso insha Allah. Marka saddexdaas trade ayaa saddexda maaragtay beer aan inta badan isha ku hayn doono next week. So insha Allah adina direct falanqeyntaada ku dirso, intaad maaragtay trade kale oo kala duwan sameyn lahayd waxaa kaaga fiican 1 iyo 2 trade oo maaragtay aad si fiican uga faa'iidaysatay oo cilmigaada ku kabtay. insha Allah intaanu mar kale ku kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.